سكريا وبكها هذا النبع عقبات ninka markuu siyaasadda soo gali rabo oo ku soo biiro doono irka kuwad soo garacay haduu marka hore wanaag uusan kala kulmin iyo wax soo dhaweyn oo waxa waay dhiirinaan ay jirin wuxuu ka faa'iido doona aska yar $20,000 ninka laga qaadayo waa in la fiirado jeebkiisa ma awood $20,000 hagu ka keenay yurkan dhalinyarada shalay jaamacadda dhambe waxaas waa cadaadis dhinaca kale marka laga fiiriyo ninkan siyaasadda inuu galo oo wax soo kordhiyo waa loo baahan yahay waa sax wax jira waaye laakiin iridda koowaad uu ka soo galaayo waxa u baahan tahay qofka Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo maadaama siyaasadda uu soo galaayo dadka kale ku dalaca laakiin arday Soomaaliyeed shalay wax bartay mutaqassis badan soo sameeyay aan ka dhaxgal Salmaan waxaad aaminsan tahay in baarlamaankan soo socda lagu liidayo dhalinyarada Soomaaliyeed ama hoos loogu dhigayo si aysan uga mid noqon dawladda soo socota marka waxaad aaminsan tahay dawladdan uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya in aysan door wanaagsan aysan siin dhalinyaradaas dawladdan in aysan siin dhalinyarada Soomaaliya aad aaminsan yes adiga is leedahay waa mid ka wadanka hadalkooda ama go'aanadooda ay wax ka bedeli karaan maadaama laba aragti oo kala duwan ay wataan waa sheegay Soomaaliya anigu nimankaas mucaaradka ah aragtiyaas soo jeedinay waa aragti qeexan marka aragtidooda ku taageeraysaa aragtida dawladda ka soo horjeeda aragtida dawladda marna ma aragti soconaysa marka maxaa keenay inaad ka soo horjeesto aan si gaar ah u taageero ugu khasbay dawladda federaalka role model kagama degsan dadka Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay dawladda markay hadlayso ama ay qorshahayso waxbay soo bantaa cadaysan ana dawladda Soomaaliyeed waa taageersan waa sax waa dawladeedii laakiin kama haayo nimankan mucaaradka waxa ay sheeganaa wax kaga hortay karto harna kama haayo dawladda waa qeexay waa daba galnay wuxuu waa soo gaanay ee dadkii irdaha ka xirtay wax cabasho maalin kasta waan arnaa waddanka gobolka Soomaaliya xaalada la socdo waan odagsoonahay dawladda markii mucaaradka hadlaan ama wax la sheego ama arrin muhiim ah waddanka ka dhacna ogsoonahay xitaa arrimaha waaweyn musiibooyinka dhacay dawladda kama hadasho shib way ka aamusan